Ku soo dhawaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luqadda Jarmalka ee ardayda beginnerska ah ama ku cusub barashada luqadda Jarmalka. Leksiyon 40 casharkeena afartanaad. Waxaynu ku baran doonaa casharkan Wohnungssuche suuqe guri raadinta. Waxaad ku baran doontaa casharkan inta nooc ay guryuhu u kala baxaan iyo inta qaab ee ay guryuhu yihiinba. Waxa kaloo casharkan ku fahmi doontaan ama aad ku arki doontaan haddii aad xayeysiis amba meel ku aragtid guri sidii aad uga jawaab celin lahayd amba aad information qofka u weydiin lahayd iska leh guriga. Inta aynaan casharkeena bilaabin aynu barano erayo muhiim ah. Die Wohnung, die Wohnung, guri. Waxaa loo soo gaabiyaa saddexdaa erey ee ku hoos yaala die Wohnung. Die Wohngemeinschaft, die Wohngemeinschaft, guryaha la wada wadaago. Fige ayaa loo yaqaanaa. Umziehen waa guurid. Ist umgezogenna waa wuu guuray. Tusaale ahaan, nächste Woche ziehe ich aan ku celiyo mar kale. Nächste Woche ziehe ich waan guurayaa usbuuc dhammaadka soo socda. Amba ich bin letzte Woche umgezogen. Ich bin letzte Woche umgezogen. Waan guuray usbuucii la soo dhaafay. Vermieter waa xaqlaha ama qofka guriga kireeya. Vermieten macnaheedu waxa weeyaan waa kirayn amba ijaarid. Der Mieter waa kiraystaha ama qofka guriga kiraysanaya. Mietana macnaheedu waxa weeyaan kirayn. Der Makler waa dilaal ama qolooyinka ka dilaala guryaha iyo waxaas. Tusaale ahaan sida qolada shirkadaha oo kale. Ta xigta die Miete waa kirada guriga. Lacagta kirada guriga la bixiyo. Tusaale ahaan die Miete für mein Haus ist hoch. Die Miete für mein Haus ist hoch. Kirada gurigaygu waa qaali. Ta xigta die Kaution waa lacagta guriga la iska dhiga haddii hadhow uu wax noqdo lagaa goosanayo. Af Soomaali deebaaji baa loo yaqaanaa. Inaad garanaysaan waa macquul amaad hore u maqasheen. Wie hoch ist die Kaution? Wie hoch ist die Kaution? Waa imise lacagta deebaajigu. Ta saddexaad die Nebenkosten. Nebenkosten waxaa la idhaahdaa haysunka kuleylka guriga, biyaha, waxaa soo hoos gala qashinka. Lacagahaas ayaa lasku idhaahdaa laga qaado qofka Nebenkosten. Ta ugu dambeysa besichtigen. Wann kann ich die Wohnung besichtigen? Goorma ayaan soo arki karaa guriga? Besichtigen ama Besichtigungstermin waxaa la idhaahdaa ballanta guriga lagu soo eegto. Ereyadani waa magacyada loo yaqaano magacyada dabaqyada uu gurigu ka kooban yahay, dabaq kasta magaciisa. Tusaale ahaan Erdgeschoss waxaa loo soo gaabsadaa e iyo g-da u horeysa waana dabaqa dhulka ee ugu hooseeya loo yaqaanaa. Dachgeschoss waa dabaqa ugu sareeya dabaqa saqafka. Übergeschoss waa dabaqa koowaad ee guriga loo yaqaanaa. Tiefgeschoss waxaa loo yaqaana waa dabaqa hoose, waa dabaqa lagu dhaadhacayo asagana hoose. Untergeschoss waa salka guriga, dabaq lagu dhaadhaco hoos loogu dhaadhacayo weeyaan ayaa loo yaqaanaa Untergeschoss. Küche und Einbaukusche waa jikadii caadiga ahayd. Einbaukushena waxa weeyaan waa jikooyinkan dambe ee iswada wata ee casriga ah.
jikadoodu dhammayska tirantaa loo yaqaanaa Einbauküche. Iyo balkoon, isna waa balkoon un. Aanu eegna kuwan xigana way noo sii socdaan un weli. Quadratmeter. Quadratmeter waa mitir laba jibaaran. Inclusive u dhammaystiran yahay amba lagu wada daro. Altbau, Neubau, dhismo hore iyo dhismo cusub. Wohnzimmer, qolka fadhiga. Telephone waa teleefanka. Circa, qiyaastii. Frei ab wuxuu bannaan yahay laga bilaabo. Iyo ta ugu dambaysa waxaa loo soo gaabsadaa Zimmer, set, Küche, ka, iyo bad oo loo soo gaabsado b. Waa qol iyo jiko iyo musqul. Meine Wohnung iyo mein Haus. House waxaa la yidhaha guri keliga aad degan tahay. Wohnungna waxaa la yidhaha guri dabaq ah oo dad badan degan yihiin, qayb aad ka degan tahay. Ich wohne in einem Haus mit Garten. Waxaan ku noolahay guri iyo beertiisa. Ich wohne mit meiner Familie in einer Wohnung in der Stadt. Waxaan kula noolahay qoyskayga guri ku yaala magaalada amba suuqa. Wir haben eine 3-Zimmer-Wohnung in einem Hochhaus. Waxaan haysanaa guri 3 qol oo ku yaala guri dabaq ah ama guri dheer. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft. Aan ku celiyo mar kale. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft. Waxaan ku noolahay guryaha la wada wadaago. Amba waxaad odhan kartaa Ich wohne in einer WG. Waxaan ku noolahay guryaha la wada wadaago. Wohngemeinschaft ayaa loo soo gaabsaday. Ich habe ein Zimmer in einer WG. Amba waxaad odhan kartaa qol ayaan ka deganahay guri ka mid ah guryaha la wada wadaago. Waxaad odhan kartaa amba Ich wohne im Stadtzentrum. Waxaan ku noolahay bartanka magaalada ama suuqa dhexdiisa. Haddii aanad suuqa ku noolayna waxaad odhan kartaa Ich wohne in einem Dorf. Ich wohne in einem Dorf. Waxaan ku noolahay tuulo ama tuuladaan ku noolahay. Aynu imikana eegno markaad ka hadlaysid mit wem wohnst du zusammen? Yaad la nooshahay. Waxaad odhan kartaa Ich wohne mit meinem Eltern zusammen. Waxaan la noolahay waalidkay amba waalidkaygaan la deganahay. Ich wohne mit meinem Eltern zusammen. Waxaa kalaad odhan kartaa haddii aad keligaa nooshahay ama degan tahay Ich wohne allein. Amba Ich lebe allein. Ich lebe allein. Waxaan noolahay ama deganahay keligay. Ta saddexaad. Wir wohnen seit einem Jahr zusammen. Aan ku celiyo mar kale. Wir wohnen seit einem Jahr zusammen. Waxaan wada noolnahay muddo 1 sano ah. Amba waxaan wada jir u noolnahay muddo sanad ah. Nu eegna ta xigtana. Wie ist deine Wohnung? Waa sidee gurigaagu? Markaad ka jawaabaysid waxaad odhan kartaa oo macquul ah Mein Wohnung hat 3 Zimmer, eine Küche, ein Badezimmer und ein Wohnzimmer. Gurigaygu wuxuu leeyahay 2 qol, 1 jiko iyo 1 musqul iyo qol fadhi. Waad odhan kartaa haddaad doontid Meine Wohnung hat 2 Zimmer, 4 Zimmer, 5 Zimmer. Sidaad jeceshahay. Jawaab kale oo macquula waxaad odhan kartaa In meinem Haus gibt es auch ein Kinderzimmer und Esszimmer. Aan ku celiyo mar kale. In meinem Haus gibt es auch ein Kinderzimmer und Esszimmer. Gurigaygu wuxuu leeyahay sidoo kale qol ilmaha loogu talagalay iyo qol cunto. Rabtid waa odhan kartaa In meinem Haus gibt es ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer, waxaa rabtid waa odhan kartaa.
amba waxaad oran kartaa oo macquula markaad gurigaaga cabirkiisa ka hadlaysid ama aad sheegaysid die Wohnung ist 75 Quadratmeter groß. Gurigayga cabirkiisu waa 75 Quadratmeter amba 75 mitir oo isku wareeg ah. waad oran kartaa haddaad rabtid meine Wohnung ist 75 Quadratmeter groß. Gurigaygu waa 75 isku wareeg ah. haddaba markuu gurigu yar yahay amba weyn yahay aad doonaysid in aad ka hadashidna waxaad tusaale soo qaadanaynaa ich finde die Wohnung zu klein. waxaan u arkaa inuu yar yahay amba inuu gurigu yar yahaan u arkaa. haddii uu weyn yahayna waxaad oran kartaa ich finde die Wohnung zu groß. waxaan u arkaa inuu gurigu weyn yahay. aynu eegna xigta die Wohnung gefällt mir. gurigu wuu i cajabiyey. haddii aad leedahay gurigaygu wuu i cajabiyeyna meine Wohnung gefällt mir. gurigaygu wuu i cajabiyey. haddaba aynu eegna xigta ich möchte immer hier wohnen. aan ku celiya mar kale ich möchte immer hier wohnen. waxaan rabaa in aan halkan ku noolaado mar walba ama badan inaan halkan ku noolaadaan jeclahay macnaheedu weeyaan. aynu eegna xigtana ich will nicht mehr hier wohnen. aan ku celiya mar kale ich will nicht mehr hier wohnen. ma rabo inaan halkan ku sii noolaado ama inaan halkan sii deganaado ma rabo weeyaan macnaheeda. tan xigta waxaan ka hadlaynaa wohnst du zur Miete. ma guri kira ah ayaad ku nooshahay. macnaheedu waxa weeyaan ma guri kira ah ayaad ku nooshahay. qof waad weydiin kartaa wohnst du zur Miete, ma kiraad ku nooshahay ma guri kira ah macnaheedu baad ku nooshahay. tusaalaha u horeeya wir haben die Wohnung gemietet. aan ku celiya mar kale wir haben die Wohnung gemietet. waan kiraysanay guriga. hadduu qofku weydiiyo gurigan miyaad kiraysatay, ja, wir haben die Wohnung gemietet. talabaad wir zahlen 600 Euro Miete. wir zahlen 600 Euro Miete. waxaan bixinaa amba waxaan bixiyaa 600 euro kirada. amba waxaad oran kartaa die Miete ist 600 Euro. kiradu waa 600 euro. ta xigta wir müssen ausziehen. wir müssen ausziehen. deshalb suchen wir eine Wohnung. waa inaan guurnaa. sidaa darteeda ayaan u raadinaynaa guri. aan ku celiya mar kale wir müssen ausziehen. deshalb suchen wir eine Wohnung. aynu eegna xigta wir brauchen eine große Wohnung. deshalb wollen wir umziehen. aan ku celiya mar kale wir brauchen eine große Wohnung. deshalb wollen wir umziehen. waxaan u baahannahay guri weyn, sidaa darteeda ayaan u rabnaa in aan guurno. aynu eegna xigta wir haben eine neue Wohnung gefunden. waxaan helnay guri cusub. nächsten Monat können wir einziehen. bisha dambe ayaan u guuraynaa. aan ku celiyo mar kale wir haben eine neue Wohnung gefunden. nächsten Monat können wir einziehen. waxaan helnay guri cusub. bisha dambe ayaan u guuraynaa. haddaba dhammaadka cashirkeena aynu ku eegno dhowr su'aalood iyo jumladood oo ka hadlaya guri raadinta. ta u horeysa ich habe die Wohnung Anzeige gelesen. ich habe die Wohnung Anzeige gelesen. waan akhriyey xayeysiiska guriga. haddii aad ku aragtid guri joornaal amba internetkaad oran kartaa waan akhriyey xayeysiiska guriga. aynu eegno talabaad ist die Wohnung noch frei. ist die Wohnung schon vermietet. gurigu weli ma bannaan yahay, miyaa la kiraystay guriga. su-aalahan waxaad weydiin kartaa qofka guriga kiraynaya amba shirkadda guriga kiraynaysa amba cid uun qof aad la hadlaysid ayaad weydiin kartaa. wann kann ich die Wohnung sehen. wann kann ich die Wohnung sehen. goorma
aan soo arkaa guriga ama goormaan soo arki karaa guriga. Aanu eegno ta xigta. Wie groß ist die Wohnung? Intee ayuu leegyahay gurigu? Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Imise qol ayuu leeyahay gurigu? Wie hoch ist die Miete? Waa imisa kiradu? Wie hoch ist die Miete? Wie hoch ist die Kaution? Waa imisa lacagta deebaajigu? Wie hoch sind die Nebenkosten? Waa imisa kharashyada dheeraadka ah. Haddaba marka aad rabtid in aad guri shirkad ka codsatid ama qof aad ka codsatid oo aad doonaysid in aad warqad amba email u qortid, saddexdan qodob waa inay ku saabsanaataa emailkaaga amba waxaad qoraysaa. Kuqun via ihr schreiben sababtaad wax u qoraysid. Angaban soo ihre Person macluumaad adiga kugu saabsan iska sheekee. Maxaad qabataa? Maxaad tahay? Maxaad samaysaa? Ma shaqaysaa? Ma iskuul baa tagtaa? Maxaad qabataa? Ta saddexaad termin via Bestätigung iyo ballan inaad ka qabsatid oo ah inaad guriga aad ku soo aragtid. Haddaba markasta oo aad email ama qoraalkaaga bilaabaysid waxaad ku bilaabaysaa qofka aad u qorto ama qofka warqadu ku socoto ama qofka emailku ku socdo. Tusaale ahaan ninka guriga kareynaya haddii uu yahay waxaad odhanaysaa Sehr geehrter Herr Vermieter. Vermieter macnaheedu waa kiraaye. Amba haddii kale waxaad odhan kartaa Sehr geehrter Herr Cali ama Cabdi ama Cusmaan. Haddii uu gabadh tahayna Sehr geehrte Frau Hebla unbaad leedahay. Haddii kale intaad iska daysid ayaa waxaad odhan kartaa oo kaaga filan Hallo Herr Cabdi. Amba hadday gabadh tahayna Hallo Frau Anderson. Haddaba qoraalkan ayaan tusaale u soo qaatay. Haddii aad rabtaan qoraalkan waad isticmaali kartaan intaad qaadataan ama sidiisa u qori kartaa. Kadibna waad ka badbedeli kartaa waxyaabaha aanad u baahnayn magacyadaada iyo sidaad u baahan tahay baad ku badbedelan kartaa. Okay, waxaad ka bilaabi kartaa qoraalka oo ku bilaabaysaa meesha aad qoraalka ka soo akhrisatay ama ka soo aragtay. Tusaale ahaan waxaad leedahay Ich habe Ihre Anzeige gelesen. Ich interessiere mich für die Wohnung. Waxaan soo arkay xayeysiiska guriga ama waxaan arkay xayeysiiska guriga waanan xiiseynayaa guriga. Haddaba guriga meesha ku yaala haddii aasan garanayn amba meesha aan lagu sheegin qoraalka aad xayeysiiska aad aragtay waad weydiin kartaa. Waad ku weydiin kartaa Wo genau ist die Wohnung? Xaguu ku yaalaa gurigu? Ist die Wohnung auch für Kinder? Guriga ma loogu talagalay sidoo kale carruurta? Inaad ku qortid intaas muhiim maaha. Haddii aad rabto waa ku qori kartaa. Haddaba qaybta ku xigta waxaad u imanaysaa adiga waa inaad faahfaahin shakhsiyadeed isku samaysaa oo aad iska sheekaysaa. Tusaale ahaan waa inaad tiraahdaa My name ist Guuled Ahmed. Magacaygu waa Guuled Ahmed. Markaad magacaaga sheegtid haddana waxaad sheegaysaa da'daada ood leedahay Und ich bin 20 Jahre alt. Waxaan ahay 20 jir. Haddaad 30 jir tahayna 30 baan ahaad leedahay. Haddii aad iskuul dhigatid ama haddii aad shaqaysidna halkan inaad ku sheegtid weeyaan. Haddaad iskuul tagtid waxaad leedahay Ich besuche noch zur Schule. Waxaan tagaa weli iskuul. Haddaad shaqaysidna waan shaqeeyaa baad leedahay. Haddii aadan midna intaa shaqa ama iskuul midna aad hayna waa ka boodi kartaa. Waxaad odhan kartaa qaybta ku xigta yaa bixinaya lacagta guriga. Die Miete wird vom Jobcenter übernommen. Kirada guriga waxaa bixinaya Jobcenterkayga bixinaya. Haddaba guriga markaad doonaysid in aad aragtidna waxaad leedahay Kann ich die Wohnung ansehen? Ma arki karaa guriga? Haddii kale waxaad odhan kartaa oo kaaga filan intaad Kann ich die Wohnung ansehen ka boodid waxaad odhan kartaa über eine Besichtigung Termin. Würde ich mich freuen. Ballan guriga ku saabsan haddii aan helo waan ku farxi lahaa. Sie erreichen mich telefonisch unter. Waxaad igala soo hadli kartaa nambarkan. Deeta nambarkaaga ku qoraysaa inaad nambarkaagana siisid weeyaan si hadhow lagula soo hadli karo. Halka qoraalka ugu dambaysa waa in aad mit freundlichen Grußen salaan wanaagsan kadibna qofka adoo ah qofka qoray emailka waa in aad magacaaga halka ugu hooseysa ku xustaa si uu qofka magacaaga u arki karo. Amba hal mar aan aqriyo casharka aan isku dulmaro. Hallo Herr Cabdi. Ich habe Ihre Anzeige gelesen. Ich interessiere mich für die Wohnung. Wo genau ist die Wohnung? Ist die Wohnung auch für Kinder? Mein Name ist Guuled Ahmed und ich bin 20 Jahre alt. Ich besuche noch zur Schule. Die Miete wird vom Jobcenter übernommen. Kann ich die Wohnung ansehen? Über
einen besichtigung Termin würde ich mich freuen. Sie erreichen mich telefonisch unter 012345678888. Mit freundlichen Grüßen, Gulet Ahmed. Danke, mahadsanid. Waad ku mahadsan tahay intaad i daawatay ee aad i dhegaysatay. Waan jecelahay inaad dhammaantiin wax badan ka wada fahanteen casharka. Haddii aad casharka ka heshay, fadlan u sheer garee oo la wadaaga asxaabtaada jecel inay iyaguna bartaan luuqadda Jarmalka. Wixii su'aal ah ee ku saabsan casharka, waad igu soo weydiin kartaa barta commentiga. Haddii aad nagu cusub tahay oo aanad weli subscribe garayn channelkeena, fadlan subscribe garee si aad mar kasta ula socotid casharro kasta oo cusub oo aan soo gelino.